kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaan nagala maanta waxaan idin hayaa waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono Xuseen Xaashi Xasan gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka oo maanta nagu soo booqday xarunteena magaalada Muqdisho. waraysiga waxaan ku eegi doonaa arrimo badan oo ku saabsan xuduudaha dalka bal intaan ugu gudaglan waraysiga aan soo dhaweeyo mas'uulka maanta barnaamijka martida noogu ah hay soo dhawow. وأنا سلامية. waayahay waa ka gudoonay su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay intaan u gudaglan waraysiga qaybiisa kale bal marka hore inaad warbixin kooban naga siiso adigoo soo koobaya shaqada aad u haysaan shacabka. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وقت شغال دلك وهاينو waxay ku cadahay laba arrimood waa ku cadahay dastuurkana waa ku cadahay inta sharciyeedka guddiga lagu dhisay way ku cadahay markii aad soo qaadato qodobka 48 qodobka 49 qodobka 112 ayay si cad ugu cadahay qodobka 135 qodobka 120 qodobka 112 bay si fiican ugu cadahay shaqada aan u hayno waa laba qodob وأرنت حدودها أنو عن استعمال السهدمها إيو فدرالك واي سيدا حللك كويساني أبودها قدق أولية حدودها إيو فدرالك وحاكم دا أو عن حسي كرنا إن بوقشوين أتكو سميسان قوبها مركاسي أد وقلت شتان شعبك مركاسي قوبالة ديدا مركا إذنكو متكتان دقموينك قوبالة دا أو بوقشوين أهان وما سنتهي هورتا inaad ogaano weeye oo bulshada Soomaaliyeed ay fahamto anagu labada qodob ee aanu saldhigano aan ku shaqeyno waxa weeye waa xuduudaha oo inagu aynu isticmaalo soohdimaha xuduuduhu horta marka hore weyn dadkeenu ay ogaadaan waa kuwii 1880 iyo afartii gumaysigii reer Yurub markii la qaybsaday Berlin shirkeedii lagu xadiday weeye laakiin inaga gudaheena dhexdiisa intii xorriyada gobolada xorriyada qaatay waxaan isticmaalnaa soohdimaha bulshada waa u tagnaa xiriir waxaanu intaanu shaqeynaynay waxaanu leenahay sida qodobka afaraad ee qodobka afaraad ee hindisa sharciyeedka uu sheegayo waxa weeye inaanu xiriir la yeelano wada tashi la yeelano ilaa shanta maamul gobol baan tagnay gobolka Banaadir waan tagnay jaamacadaha xiriir baan la sameeynay ururka haweenka qaranka waa la sameeynay dhamaantoodna waxaanu siinay daraasad ku saabsan dalka soohdimihiisa naqshadihiisa xuduudihiisa sida uu yahay waxa laga rabo iyo waajibaadka laga rabo inay bulshada Soomaaliyeed gudato waayahay sidoo kale dastuurku wuxuu qabaa inaad la tashataan maamul goboleedyada dalka ka jira xiriirka maamul goboleedyada alla leedihiin waa sidee aad iyo aad buu fiican yahay shanta maamul goboleed ee gobolka Banaadirna waa u mahadnaqaynaa wayna la shaqeeyaan annaguna waa la shaqeynaa meel fiican buu noo marayaa aad iyo aad bay noo soo dhaweeyaan wax allaale wixii facility ama tashiilaada way noo sameeyaan taasina waxay dhalisay in shaqadii annaga aan rabnay inaanu ka sameeyno dawlad goboleedyada iyo ayaga waxay u baahnaayeenba in aan mataqaana isla fahamno isgaarsiino jaaniskanna waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo magaca guddiga ugu mahad celiyo dhammaan shanta dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir waayahay marka gudoomiye waxaan ka rabaa marka guddiga aad adigu gudoomiye ku xigeen u tahay ma jiraan caqabadooyin hortaagan horta fiiri meel kasta oo maamul uu ka jiro ama hawl ka jirto caqabado waa imaanaya caqabadahaasina waxa weeye hadba sida ay u kala culisiin baa loo xaliyaa caqabadaha imaanayo waa jirayaan laakiin wixii caqabadaha dawladdan la kashanaa anaga inkastaan guddi madax bannaan yahay guddiga madaxa bannaan ee federaalka xuduudinta misana dawladda iyo dawlad goboleedyada la wadaagnaa bulshada Soomaaliyeed ma la wadaagnaa aqoon-yahanadaan la tashanaa ururada bulshada la tashanaa waxa weeye dadka shaqadu naga dhaxayso ayaanu la tashanaa arrimo kale waa iska jiraan oo culeysyo xagga dhaqaalaha iyo waxaana waxaan dawladda kala hadlayno hadii la yiraahdo waayahay markaan eegno arrimaha xuduudaha dalka aan u soo qaadano Kenya oo kale waxa kala dhaxeeya Soomaaliya waa ognahay bal taa idinku guud ahaan maxaad ka qorsheysan maxaadna kala socotaan horta waxa weeye inagu dawladda Soomaaliya baan leenahay dawladda Soomaaliyeed sharciga
wuxuu qorayaa dastuurkeena wuxuu qorayaa dalka Soomaaliya xuduudihiisu waa lama taabtaan arrimo siyaasadeed weeye wixii waaweyn oo arrimo siyaasadeed wasaaradda gaashaandhig wasaaradda arrimaha dibadda iyo dawladda Soomaaliya ayaa mataqaanay aanu kala tashanaa anoo mahad celinaya madaxweynaha waa Kenya xataa u tagay arinta Beled Xaawo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii loo diray 3 jeer ama 2 jeer Beled Xaawo 47 sano degmo tahay waa la soconaa naqshadaan ka sameynay dawladdan kala tashanaa ilaa 1973 ay degmo noqotay inta hawlaheeda iyo sida ay yihiin iyo waxa ka jira arintaas waxa weeye naqshadaheedina waa haynaa wixii aan tala iyo wixii go'aanana dawladdan la wadaagna iyo labada baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo aqalka sare la wadaagna waa yahay kabaran markii caqabad ay idin soo hor istaagto oo dhanka dalalka ku saabsan oo arrimaha xuduudaha idinku yaad la tashataan horta annaga arrin xuduuda markii la yiraahdo sida uu dastuurku qorayo waxa weeye wixii ka baxsan dalka gudihiisa waxa weeye dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo arrin siyaasadeed ayaga ayaan la tashanaa وهاوشاسنا waxay noqotaa hawl qaran weeye wixii hawl qarana sida dastuurkii 60kii uu qorayo sida uu qorayo dastuurkii 79kii sida uu qorayo dastuurkii 2002 iyo sida uu qorayo dastuurka 2012 waa arrin qaranna wixii aanu markaa dawladda aanu warbixin u gudbinina sida ay ku habooneyd ee wadaniyada ee qarannimada ee Soomaalinimada ayaa wax looga qabta oo looga jawaabay waayahay marka laga tago Beled Xaawo aad sheegtay in naqshadeynteeda soo bandhigteen degmo kale ma jirtaa ama degmooyin kale soo bandhigteen حقيقة هذا وحي دقدقة ولا سعنا هذا صدق تحين وحوي عدة هوشة كل برلمانك أفرتي بلاد بمربان وبرلمانك وربحين سينا قالها وكل ذا ياقل كسره ولا وذاقنا لكن مر والبابا وحي كب حسن لبدي حرية دقاتي وأرين قرنا قابل الله مرو يود الله مرو يعيد لقلات الشدو يقعان بيلي هذا هاي قرن يقعان لقف لنا يقرن كويسكليه waayahay markaan u nimaano arinta badda oo xuduudaha xitaa inta badan la isku hayo adigu ahaantaada gudoomiye ku-xigeenka guddiga madax banaan adigoo ka hadlaya maxaad kala socotaan arinta badda oo in marar badan dib loo dhigay haddana wali la sugayo arinteedu xasaas ay tahay horta arinta baddu iyo tan gali madax waa dhul Soomaaliyeed waa bad Soomaaliyeed Soomaaliya waxay leedahay 3,333 dherer ah waxayna leedahay hindi laba bilood Hindian Ocean-ka iyo Red Sea-ga Soomaaliya dhererkeeda sidaas ee badana waa 350 male saan u soo sheegay waa arrin sharciya waxa weeye Geneva Convention-ka markii aynu xorriyadda qaadanay baa lagu cadeeyay gorgortan male cid lagala gorgortanayo male waxa weeye waa dhul qaran ku leeyahay waa dhul dastuuriya cid qaran oo cid lagala gorgortamaya iyo mid gorgortan galaysa midna maaha waa gartay marka waxa la leeyahay oo ay Kenya inta badan ku doodaa inay garab ka helayso siyaasiyiin hore inay saxiixeen badda oo xilligii Xasan Sheekh marka idinku ma la socotaan arrimahaas waxa weeye waa waxyaalo dawladda u yaala wixii tilaabo laga qaadayana waxa weeye dalku qaran buu leeyahay madaxweynuhu leeyahay ra'iisul wasaaruhu leeyahay baarlamaan laba aqal buu leeyahay wasiiruhu leeyahay wixii arinta ku saabsanna waxa loo marayaa hab siyaasadeed hab wada tashi hab dastuuriya hab degan hab maxaan ku raraa ixtiraam leh ayaa loo marayaa dawladda ayaanu uga dambeynaa ayadaana mas'uuliyadda iska leh oo ay guddiga madax banaan ee xuduudaha hadda maxaa uu qabtay oo la soo bandhigi karaa shacabka la wadaagi kartaa shaqooyinka sida ku qoran ama ku cad sharciyeedka guddiga lagu dhisay qodobkiisa afraad 8 qodob ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in aanu naqshadaha samayno dawlad goboleedyada iyo degmooyinka in aan samayno diyaarino dawladaha xubinta ka noqonaya dawladda federaalka in aan samayno astaynta sohdimaha ay kala yeelanayaan si berrita hadday doorasho timaado waxa iskale guddiga ama doorashada hadda madaxweynuhu saxiixay aan uga mahadcelinayno waxa weeye degmooyinka iyo tiradooda iyo intay noqonayaan iyo meelaha doorasho deegaanka waxa iskale oo diyaariyay oo aanu gacanta ku haynaa oo aanu dadka u soo bandhigi karnaa
waa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka haddii aan degmooyinkii ayna caddayn haddaysan beelihii caddayn haddayna sohdimihii caddayn see loo samaynaya ma dadkaa la isku laynaya waa maya waxa weeye annaga waan bilownay maamul goboleeda waa isu keennay khad wax la yidhaahdo baan u waxaynay waxaan la isugu yimid masalan haddaan ka soo qaado hirshabeelle iyo koonfur galbeed boqolkiiba 99 way isku raaceen 2 degmo ama 3 degmo ayaa waxa weeye xaggay khadka ka maraa annagu waxaan isticmaalaynaa dad aqoon leh oo injineer ah iyo qalab casri ah ee aan ku shaqayno marka waxaan dhamaanaya sida ugu dhaqsaha badan 5 maamul goboleedba in laga gudbo isqaqabsi iyo xagga annaka iyo annaka xagga leh isla markaa waxaan rabaa inaan kuu sheego dalkii dawladii dhexe waatay burburtay dalkii naqshadiisii ma ay jiraan NGO yaa waxay iska sameeyeen naqshado hadda waxaan samaynaynaa naqshadihii sax ahaa ee dalku ku doorasho lagu geli lahaa maxaan ku dhahay doorasho deegaanka cadayn lahaa canshuuraha cadayn lahaa dawlad goboleedyada dhexdooda ayna muran ka yimaadeen berita dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka u noqon lahaa taana waxa weeye hadda degmay waxaan maraynaa maamulkii saddexaad ama labaad baan maraynaa intii aan tagnayna wayna soo dhaweeyeen wayna la qaateen in laga baxo 2020 baan joognaa 2020 in la helo degmooy naqshado casriya oo maamul goboleedyada iyo annaka iyo baarlamaanka iyo aqalka sare la isku wada waafaqay ee diyaarsan ayaan hadda gacanta ku haynaa waana noo dhowdahay waana noo dhamaanaysaa waa maasanta gudoomiye haddaan markaan eegno Ethiopia maalin dhowd waxay soo bandhigtay oo la hadalhayay naqshad ama qariirad kooban oo 3 dal inay tahay taa maxaa kala socoteen idinka guddiga waxa weeye horena waan u sheegay markale waa ku celinayaa arrinta ay soo bandhigtay Ethiopia dawladda Soomaaliya way ka jawaabtay dawladda Soomaaliya ayada qarankii ka mas'uula waana caddahay annaga waxa nagaga aadana waxa weeye siyaasadda dawladdu waxa ay fulinayso oo gashahay ayaanu ku shaqaynaynaa iyo sharciga iyo dastuurka anaga nala ku dhisay waayahay ugu dambeyn marka baaqa aad u jeedinayso bulshada xaqadii waxaan jeclahay bulshada inaan u jeediyo horta marka inaan salaamo ayaga iyo bulsha TV dalkeena waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye oo Allah aad in nala ka shaqeeyo oo gacan nala ka siiyo oo naloo fududeeyo waxa weeye inaynu hello soohdimo saxa oo maxaan ku yiraahdaa ay dalku yeesho mustaqbal u ah qodobka koobaad qodobka labaad waxaan u jeedinayaa federaal baynu qaadanay sida uu qodobka 48 qabo dawlad federaalka marka dawladaha federaalka ay noqonayaan dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta ka dawladda federaalka in daraasada in la barto Soomaaliya xuduudkeedii muxuu yahay annaga macallimiin diyaar baan leenahay ardayda jaamacad diyaar baan leenahay cidii maxaan ku raad aqoon-yahanada inaanu la wadaagno diyaar baan u nahay dawlad goboleedyada diyaar baan u nahay waxaan u jeedinaynaa inaanu annana casharadii wixii tala ah aqoon-yahanada ku soo dhaweyna xafiiska iyaga cid allaale dhaqanka culimada shakhsi kasta iyo koox kasta waxaan leenahay ku soo dhawaada guddiga xuduudaha soo dhaweynaya waaya aad u mahadsan tahay daawadayaal intaasaan jeclaynaa ku hakino waraysigeena aan la yeelanay Xuseen Xaashi Xasan gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka oo aan aad uga mahad celinayo maantana nagu soo booqday xarunta Muqdisho aadan kaaga mahad celinayaa sida wacan aad nooga ajiibtay waraysigeena nabadgelyo daawadayaal